nabadgelyo saaxiibayaal kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe oo amray in ciidamada dawladda federaalka ay isaga guuraan agagaarka goobta ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha Soomaaliya amara waaweyn oo lid ku ah muxaafadkana soo saaray sidoo kale daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo xoojiyay ololihiisa saacadihii tagay iyo talaabooyin uu qaaday kadib markii uu ka soo laabtay dalal dhowr ah uu ka soo helay dhaqaale aad u xoogan oo markaasi ku xoojiyay ololihiisa doorashada madaxweyne Sheekh Xasan Sheekh Maxamuud oo bilaabay olole xoogan oo muujinaya dib u doorashadiisa iyo waliba Cabdullaahi Kulan oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo Sanbaloosho oo kulan saacado badan qaatay oo albaabada u xiran yahay ku yeeshay Hotel Dikeel haddaba maxaa looga hadlay kulankaasi qodobadaas iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaa halkan idinkugu soo gudbin doonaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyaga oo fisan aynu ku bilownay magaalada Muqdisho waxaa ka socda olole xoogan oo ay sameynayaan musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya kuwaas oo doonaya in midba midka kale uu ka guuleysto Hotel Dikeel waa mashquul waxaana buuxdhaafiyay xildhibaano ka tirsan iyo dalaaliin siyaasadeed kuwaas oo saacadihii ugu dambeeyay halkaasi ka waday kulamo kala duwan oo lagu soo jeedinayo xildhibaanada xildhibaan Cabdillaahi Kulan oo markaasi si weyn ugu dhow madaxweyne Farmaajo iyo waliba Sanbaloosho oo markaasi ku xiran madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan 8 saacadood ku dhow waxay ku qaateen Hotel Dikeel ee magaalada Muqdisho kaas oo ay kaga wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka kulankaas oo martiqaadkiisa uu lahaa Cabdillaahi Kulan ayaa Sanbaloosho waxa markaasi looga dhaadhicinayay sidii uu u taageeri lahaa mar kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo isaga raba in mar kale la doorto Sanbaloosho oo si weyn u dhalaysan siyaasadii 5 sano ee la soo dhaafay madaxweyne Farmaajo ayaa isaga waxa uu wadaa ama markaasi doorkani uu xoog olole ugu jira in mar kale uu soo saaro madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isaga olole xoogan oo saameynteeda la ka wada magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kulanka Sanbaloosho ee xildhibaan Kulan oo ahaa mid albaabada u xiran yahay ayaa warar hoose oo aan helayno oo si hoose lagu soo dusiyay waxa ay sheegayaan in Sanbaloosho iyo waliba Cabdillaahi Kulan ay isku fahmi waayeen sida loo wajahayo siyaasadda wararka qaarkood ayaa waxay sheegayaan in Kulan uu soo jeediyay in haddii ay dhacdo in wareega kuwad ay ka soo gudbaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi dhinaca siyaasadda ay u badan tahay ama loolanku u badan yahay in la wada aado haddii Xasan Sheekh uu u dhow yahay in madaxweyne noqdana loogu shubo codadka haddii madaxweyne Farmaajo uu markaasi u dhow yahayna halkaasi la aadiyo codadka lama oga haddii ay jiraan go'aamo ay isku fahmeen labadan mas'uul oo saacadihii ugu dambeeyay ku shirayay Hotel Dikeel ee magaalada Muqdisho Hotel Dikeel waxaa degay oo qolal ku leh siyaasiyiin badan iyo musharaxiin madaxweyne kuwaas oo raba in xildhibaanada halkaasi ay ku soo jiitaan dhinaca kalena madaxweynihii hore Soomaaliya ahna musharax u tartamaya mar kale hoggaanka dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa saacadihii u dambeeyay laga dareemay magaalada Muqdisho inuu xoojiyo ololihiisa dib u doorashada Shariif ayaa xalay hoygiisa ku booqday madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen oo aad ay u kala fogaayeen maadaama Lafta Gareen uu ololeynayay madaxweyne Farmaajo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in Cabdicasiis Lafta Gareen ay ka wada hadleen dhameystirka doorashooyinka madaxweynaha isagoo uga mahadceliyay kaalintiisa doorashada dalka Shariif ayaa inta raaciyay in isaga iyo Lafta Gareen ay isla soo qaadeen muhiimadda ay leedahay in si wada jir ah looga shaqeeyo in doorashada si nabad ay ku soo idlaato dhinaca kalena warar aan helnay ayaa sheegaya in madaxweyne Sheekh Shariif uu ka codsaday Lafta Gareen inuu ka qayb qaato sidii dalka isbedel uga dhici lahaa si loo bedelo madaxweynaha xafiiska sii haya ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo sidoo kale Shariifka ayaa la kulmay madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe iyagoo ka wada hadlay gabagabada doorashada oo maalintii 15 May ay dhici doonto tan madaxweynaha dalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa kala hadlay Cali Guudlaawe sidii doorashada ugu gacan siin lahaa inuu ku guuleysto iyadoo dhinaca kalena Cali Guudlaawe ay u badan